واو dhacay qorigii dabcan xaalad dagaalka ayaa si cuslaatay waxaana taasi ay saamaxday in madaafiicda ee goob dagaalka loo adeegsado dagaalka jicib uu ka socda ciidanka admis ee Djibouti hil walaal howlgalkan ka ah howlgalka admis ee Soomaaliya qaybtooda Hiiraan gaar ahaan buurburta ku sugan ayaa lagu wadaa inay ridaan goordhow PM kan oo kamid ah madaafiicda goobta dagaalka sida saraakiisha ay sheegeen bartilmaameedku waxa uu yahay goobo la sheegay in shabaab ay ku jiraan oo dabcan la sheegay inay ka dagaalamayaan jicibow dhankeeda galbeedna ah sida arki karaysaan waxa goobtan dabcan ku sugan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeebte Cismaan xildhibaano oo kamid yahay Maxamed Abduqaadir Maxamed Ibrahim Macalimo saraakiil ciidan siyaasiyiin dadkaas arkaysaan oo dabcan mas'uuliyiinta ah waxa ay ka warsugayaan hannaanka dabcan qorigan oo u dhici doono waayahay daawade haddaba ila soco idinka oo ku sugan gurihiina iyo goobihiina shaqada ayaa waxa jicib uu ka socdaa halkan idinkala socodsiinaynaa daawadayaal qadar 2 daqiiqo ayaa dhiman qadarkaas 2 daqiiqo kadib qorigan dabcan PM ka ah waa uu dhici doonaa waa yahay daqiiqada kooban ayaa harsan dabcan qorigan in la adeegsado waxay saraakiisha u sheegeen inay timid kadib markii dagaalka uu socday isla markaana goob buur ah dabcan shabaabka ay ku jiraan ciidankooda la soo sheegay sida awgeedna halkaas lagu duqeynayo ciidanka Djibouti ee howlgalka admis qaybta ka ah ayaa diyaarinaya qorigan si ay dabcan u ridaan diyaarintii ugu dambeysay ayaa ciidanka ay ku jiraan si dabcan qorigan ay u ridaan jicibo ayaa idinkala soo hadlaynaa daawadayaal oo dagaal ciidanka dadka deegaanka ee loo yaqaano oo garabka helaya ciidanka dowladda iyo kuwa Djibouti ee admis iyo al-shabaab uu ka soconayo waayahay taliyaha uu amray qoriga in la rido taliyaha uu واو dhacay qorigii dabcan
howlgalku maanta aanu nimid wuxuu ahaa arrinta jicibow waxaa lagu garaacay altaleeri ciidamada infantariga ee isugu jira ciidanka xoogga dalka iyo maxaanku raa waxa altaleeriga ku garaacay waxay ahaayeen ciidamada admis qaasatan kuwa heel walaal ee Djibouti halkaas ayaa xoog u garaacay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa maxaanku raada ciidanka deegaanka dib u xoreynta la yiraahdo awalna macawisley la dhihi jiray oo iska barbar diriraya ayaa gacan adag saaray maanta waxaynu ku soo gabagabowday guul waxaanan rabaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waladeerow haddaan nin jabay laga faa'iideysan ma nin mitaya laga faa'iideysan karaa waa maya dadka Soomaaliyeed shabaab waa jabay ka faa'iideysteen ha ka saareen dhulkooda ha israaciyeen israacin buu joogay israacin uu joogaa ha israaciyeen waxa mahad celin mudan oo aan rabaa inaan mahad celiyo sorry ciidamada heel walaal qaasatan kuwa reer Djibouti ee qarixii beledweynana runtii qayb ilbaax la ka qaatay fashiliyay gaariga u dambeeyay toogtay asoon soo gaarin targetkiisii ee burburiyay haddana maanta altaleeri ku garaacay oo u burburiya ciidamada Soomaaliya inay si lixaad la uga adkaadaan nimanka la yiraahdo argagixisada ee shabaab waa u mahad celinayaan waxay naga mudan yihiin inaan u mahad celino Soomaalidu waxay tiraahdaa waa shukri ala waajib qofkaas waajibkiisa u gutay maya qof kasta oo shabaab gacan ku dhiftay waa u mahad celinaynaa qaasatan ciidanka heel walaal waa u mahad celinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dib u xoreynta oo aan garanayno inay 2 sano abaar ku jireen oo aan garanayo duruufta ay ku sugan yihiin oo aan garanayo inta bilood ay dagaal ku jireen waxaan leenahay ilaahay baa ida abaal mari kara idama abaal mari karna anagu ma ida abaal mari karno taariikhda ayaana idin xusi doonta waxa aad maanta qabataan taariikhda xusi doonta eeg 1964 haddaan qaldanayn dagaalkii ka dhaca Wajaale ninka loo hadda xeeradan meeshan la yiraahdo xalana loogu magac daray caalanka ayuu ka soo saaray halkaas oo uu soo qaaday ilaa hadda la joogo Soomaaliya maamuus ku dhaxlee maamuusaad Soomaaliya ku dhax yeela doontaan sababaha aad ugu dhaxleedihiin waa sababaha dhibaatada aad aragtay aad ugu dul qaadateen waa idin mahad celinaynaa ilaahay baana jisadiina idinka waraabi doona annagu idiima abaal gudi karno laakiin wadankiina idin abaal gudiye bal waa xasuusnaanayna markaan ugu yaraano ma idin hilmaami doono aad iyo aad u mahadsantihiin falkii jicibowna wuxuu ku soo dhamaaday guul